الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hogaanka xisbiga golaha wasiirada iska casilay xukuumadda xubnaha kale ee baarlamaanka iyo guurtida dhammaan golaha dhexe inta halka ka joogta haweenka baasha salaadiinta saxaafadda iyo dhammaan inta kale ka soo qayb gasho waxay ku salaamaya salaata islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. intii waqti dheer idin socday hadalku waxaan jecelahay inaan dalalkan idin ku soo qaabiyo anoo marka hore salaanta islaamkeeda ku salaamaya. runtii waxaan la qabaa saaxiibadaydii hortay hadlay ayaan la qabaa fikradda keliya waxaan ku yar kordhinayaa anu waxaan u badanayaa xagga gobolka sidaynu ogsoonahay gobolka awdal qofku markay maskaxdiisu jalleecdo awdal waxaa lagu dareemi jiray oo lagu yaqaanay nabadgelyo, dad isjecel, dadayna dhibaato inta badan dhex marin, dad diilada ka timaada gobollada kale u gurmada. muddadii madaxweyne ku-xigeenku yimiday kursiga maalintii ugu horreysa waxaa ka bilaabmay waxaan gobolka lagu aqoon oo ah mudaharaado in dadkii la kala fogeeyo, in jabhada ka dhex abuurmaan, in ardaydii u sarri jiray imtixaanaadku ay ku wareeraan arrimo siyaasadeed, in dadkii reerihii wada deganaa ay sanacaan, in maalintii ugu dambeysay halkan madaxweynuhu maqnaa habdoorkii reerku lahaa lagu soo gudabiyey jeer, in oqaashii gobolku weliba raaskii odaygu halkay uga gurman lahaayeen ay u siyaasadeynayeen u ordayeen, in wasiirada qaarkood ay ku faraxsanaayeen habdoorka la soo horreeyay halka lagu xidhay. marxaladdaa uu gobolku marayo inagoo inoo wada muuqato oo maalintii dowladda kulmiya dhalatay ilaa maanta aan qof shaqo soo galay oo reerka madaxweyne ku-xigeenka ahayn oga jirin, balse dadkii xilalka hayay laga xayuubiyey. maantana anigoo aad iyo aada ugu mahadnaqayo madaxweynaha sharafna u haya ay ii muuqatay in ninka marxaladda gobolkii gaadhsiiyey haddana uu noqdo musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga loo xidhay. horta waa arrin aad iyo aad tiiraanyo u leh, waana arrimaha in badan oo u hanweynay inay gobolka ka badbaadiso maanta ay ku dhacday niyadjab. anigu markii aan iscasilay shaqaan hayay waftigii imaaraadka ayaan dugsigii hore farsamada gacanta oo aan kormeerayno dhibaatooyinka waxbarashada ka jirayo iyo farsamadii gacanta
dhibaatada ka taagan aan ka hadlayay saacadihii kabacdina way ka tegayeen ka tegistaa xilku waxay aniga aad iyo aad ugu tacalluqtaa dhibaatada gobolka awdal ka taagan waxaan leeyahay mujaahid musabixi waxaan leeyahay ha noqonin waraabihii reerka u dhacay ee qalbidka la dhacay aan noqon baan leeyahay